carwadii labaad ee Somaliland Business Fair oo iskugu yimaadaan ganacsato ka kala socota Somaliland Djibouti iyo deegaano kale ayaa waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Carwadan oo socon doonta muddo 5 cisho ayaa furitaankeedii waxa ka qayb galay 8 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, agaasimayaal xildhibaano, ganacsato ka kala socotay shirkadaha waaweyn iyo kuwa kale. howlka weyn ee Mansour ay oo si farshaxnimo ku jirtay loo soo agaasimay ayaa in ka badan 100 shirkado iskugu yimaadeen kuwaas oo ku soo bandhigayay alaabaha iyo adeega iibiyaan. furtaankii carwadaasi waxa ka hadlay Cali oo ah gudoomiyaha qabanqaabada carwadaasi, waxaanu ku dheeraaday qaabka iyo nidaamka carwadaasi ay u soo abaabuleen, isagoo sheegay inay guul u tahay Somaliland in carwo ballaaran laga furo magaalada Hargeysa. haddana midiyaan sheekay carwadan waxaan ku soo qabanqaabnay 3 dhalinyaro waxaan ku soo shaqeynay runtii muddo 4 sanadood tagmaadkii labaad waad arkaysaan sida u socoto kulay bandhigii hore waad ka wanaagsan. Yusuf Afrikaan oo ku hadlayay magaca ganacsatada Jamhuuriyadda Djibouti ka timid ee carwadan ka qayb qaadanaysay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay suurtagalnimada in carwo ballaaran laga furo magaalada Hargeysa. qabanqaabiyaasha carwadan waxaan doonayaa inuu wariyo runta ganacsiga ee Hargeysa hadda Somaliland oo si fiican looga soo qayb gashay wasaaradda ganacsiga oo iyadoo aad loo gacanta loo haysay. Marayaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Cabdiwaab oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telesom, ganacsato kale oo ka kala socotay dalalka jaarka sida shirkadda Toyota Maril ayaa iyaguna carwadan ka hadlay, waxaana tusaale u soo qaateen horumarka ballaaran ee ganacsatadu muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku talaabsadeen, iyagoo hambalyo u diray qabanqaabiyaasha suurtageliyay carwadan ballaaran ee Somaliland Business Fair. wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga, maaliyadda, kalluumaysiga, beeraha oo iyaguna ka hadlay munaasabadaasi Axmed Xaaji Cali Cadami, Cabdilaahi Cusmaan Geljire, Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Faarax Geedoole waxay tilmaameen inay Somaliland guul u tahay in ka badan 100 ganacsato ay iskugu yimaadaan caasimadda Hargeysa carwo ballaaran oo lagu soo bandhigayo agabka iyo alaabaha iibiyaan ganacsatooyinka Somaliland iyo kuwa Djibouti iyo kuwa dalalka kale, waxaanay ku booriyeen in halka ay ka sii wadaan dadaalkooda ku aadan ganacsiga xorta. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo isagu gabagabadii xadhiga ka jaray carwadan ballaaran ee labaad ee maanta laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxa uu ku hambeliyay ganacsatooyinka iyo qabanqaabiyaasha carwadaasi, waxaanu yidhi iyo laftigeeda inay ganacsatadu suuq ka hesho muddadaas ayna ka hesho wadista ay ku soo gudbito waxa ay soo saarayso ay ku ogaadaan dadku. waxaan rajaynayaa dhammaanteen inaynu arrinta ayada uga faa'iidaysan doono. waxaan kaloo xusuusinayaa haddii ay idmo ciddii si private ah nin ganacsada ah sida ganacsatada loo weyn ee wax soo saarkooda soo bandhigaysa uma baahna carwadan oo kale inay qabtaan. waxay xaq u leeyihiin oo ay samayn karaan inay carwo iyagoo ay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda gaar ah ay qabtaan.